بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعد عبد الرحمن أحمد سلوبي واي أفينك جمهد حرين إيران جلف waxaan rabnaa maanta Iiraan weyn inaan idin sheegno in magaalada Beledweyne saakay 4 subaxnimo aroortii markay ahayd la wareegtay dhaqdhaqaaqeeda iyo gacan ku haynteeda magaalada jabhadda oo kaashanaysa shacabka reer Hiiraan ee magaalada Beledweyne kadib markii dulmi iyo gardarro iyo wax aan sharci ahayn la dul keenay ayadoo dulmigaas ay wadaan kooxda isku magacaawday Jowhar oo isku caleema saartay oo ayadu tiri dawlad baan nahay ayadoon Hiiraan masalaynin wax matalaada u jirin ayagoon xuquuqda Hiiraan la ilaalinin ayadoon shacabka Hiiraan la ilaalinin kooxdaas ayaan rabnaa maaragtay inaan magaalada ka saarno haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ugu baaqayaa inay isaga tagaan magaalada Beledweyne 24 saac oo soo socda hadday ka tagi waayaan waxay la kulmaan jawaab midii saaka dhacday ka adag ama midda hadda socoto gudaha inay soo gasho waxaa sababay laba qodob kow in naga joogsan waay inay weerar lagu soo qaadaan ayagoo u soo maraya militarigii federaalka iyo nabad sugidii federaalka oo qarankan loo dhaariyey oo qarankan u dhaaratay oo cashuurtii dalka mushaar loo siiyo ay naloo adeegsaday oon marar badan ka cabanay inay naga joojiyaan faragelinta number 2 ayada oo rabaan in ninka ay ku sheegeen madaxweynaha oonaan annaga u aqoonsanin madaxweyne oo isku dayay inuu yimaado magaalada Beledweyne ayada oo numberka 3 oo ah in magaaladii banaanbax nabadeed laga dhigi waay dhaqdhaqaaqa xorriyadii dhaqdhaqaaqa siyaasadeed la waay mid dhaqan la waay shirarkii madaxa banaanaayo magaalada Beledweyne ay ku qabsan lahaayeen dadka diidan dulmigaas ay waayeen markii dadka la cuburiyay kadib ayaan go'aansanay inaan magaalada si toos ah u soo faragelino magaaladana annaga hadda controlna Beledweyne dhaqdhaqaaqeeda dhan gacantan ku haynaa jabhadda oo kaashanaysa shacabka reer Hiiraan oo aad iyo aad aan ugu hambalyeeyo sharafta mudan wanaagsan oo doonayno insha Allah tacaala ugu baaqayno inay iska dul qaadaan dulmiga ayada oo Hirshabeelle lagu dhisay dulmi 2016 oo ognahay haddana wixii horeba ay janno ahaayeen mid ka liita lagu dhisay waa magaalada laga soo bilaabo xarada militariga ee Lamagalaay loo yaqaano ilaa jeenta ku dishay intii ka dhaxaysa marka laga reebo xarumaha ay AMISOM degan yihiin ama UN ku degan yihiin annaga ayaa si buuxda gacanta ugu hayna controlna ay jidadka shacabka jooga ayadoo la ogolayn ama la diidayo inay ku soo maraan ku dhaqdhaqaaqaan ka shaqeeyaan kooxdii isku caleema saartay cali guudlaawo Beledweyne ma imaan kariyo insha Allah mana imaanayo mana ku dhacayo inuu yimaado ilaahay idankiis waxaan kaloon rabaa inaan meeshaan uga faa'iideysto idaacadan Hiiraan weyn nimanka jooga magaalada Beledweyne ku jira Lamagalaay xarunta madaxtooyada gobolka ku jira oo magacaad sheeganaya way is yaqaanaan inay ka baxaan magaalada 24 saac meeshii ayaga ay isugu saxbiyeen ay saarka iskaga tumeen inay ku laabtaan ayaan rabnaa hadday ku laabo waayaanna jawaab midda saaka dhacday haddana taagan ka adag ayay la kulmi doonaan annaga waxaan diidanahay magac Hirshabeelle wax la yiraahdo maba rumaysnida waa ma kuleeyahay Hirshabeelle ma aqoonsanin waxaan u naqaanaa kooxdii saarka iskaga tuntay Jowhar adeer annaga nimanka yimid ma u naqaano hadda umana aqoonsanin inay yihiin state ama maamul niman reer Hiiraan oo guryahoodii ku soo laabtay oo guryahay ka dhasheen oo xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii joogaan yimid aan u aqoonsanaynay inta baan ku ixtiraamnay haddana ixtiraamkii way ka gudbeen ayagana waxa la marinayaa meesha cali guudlaawo la mariyaa ayagana la mariyaa